war-saxaafadeed ka soo baxay dalada bulshada rayidka ee Zonza ayaa walaac looga muujiyay shirkii fashilka ku soo dhamaaday ee magaalada Garowe oo ka soconayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. dalada bulshada rayidka ee Zonza oo horey loo oran jiray Sochenza kuna midaysan yihiin ururada bulshada rayidka, ganacsatada iyo xirfadleyda, waxa ay walaac ka muujinaysaa sida uu ku dhamaaday shirkii Garowe oo runtii rajo badan laga qabay in heshiis laga gaaro khilaafka hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Zonza waxa ay nasiib daro ku tilmaamaysaa in hogaamiyaasha siyaasadda ee ku shira Garowe aysan marna ku xisaabtamin xaaladda adag ee uu maanta dalka marayo haddii ay ahaan lahayd arrimaha siyaasadda, amniga iyo tan dhaqaale. waxa ayna arrintaas dhaawacaysaa rajada ay bulshada ka qabeen hogaamiyaasha siyaasadda dalka. Zonza waxa ay ka digaysaa in aragti kala duwanaanshaha hogaamiyaasha siyaasadda uu saameyn mugdi ah ku yeesho mustaqbalka ayaha Soomaaliya. waxa ayna soo jeedinaysaa inay ka waantoobaan khilaafka ku dhisan aragtida shakhsiga oo ay kala qabaan wax walibana lagu xaliyo sharciga dalka, isla markaasna la ixtiraamo doorka iyo kaalinta golaha shacabka ku leeyahay waxyaabaha ay isku haystaan. waxaan aaminsanahay in khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu caqabad ku noqday hanaanka dhismaha hay'adaha dowladda, mana la aqbali karo inuu sii socdo iyadoo xaalad adag lagu jiro. ugu dambeyntii, ururada bulshada rayidka waxa ay ku baaqayaan in hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada shirka dib la isugu soo laabto iyadoo goobjoog ka noqonayaan ururada bulshada rayidka, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay dalada bulshada rayidka ee Zonza oo uu ku siixan yahay gudoomiyaha daladaas Cusmaan Muxudiin Macallin. وافي جنرال تريدينج كامباني waxay ciid sanadkan ilmahaaga u keeneen dharka Amira Collection. ilmihii loo gado dharka Amira Collection baa farxad ku ciidi karaya.